السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. meel walba aad joogtaan saacad walba idin tahay waxaan idin rajaynayaa bashbashi barwaaqi nabad qab haddii Allah awood leh uu yiraahdo. maanta waxaan idin hayaa barnaamijka caafimaadka. waxaan ku soo qaadanaynaa 6 shay inta badan keena intimaha ay qofka ka daataan marka dambana bidaar uu qofka yeesho. bidaarta rag iyo dumarba hadda way soo wada wajahday. waxyaabaha keenaya waxaa ka mid ah 6 siyaabood oo in la iska ilaaliyo ama laga fogaado ay muhiim tahay lagana taxadaro. 6daasi waxay kala yihiin: 1 ragga koofida xirta waa inay koofida ay u yeelaan waqti go'an iyo xilliyo gaar ah. koofida oo si joogto ah loo xirto waxay leedahay timaha oo qofka kasoo durka oo marka dambana isku bedesho inuu bidaari timaado. taasi dumarka ma qosayso, ragga weeyaan. laakiin arrimo kale oo dumarka iyo ragga ay wadaagaan baa jirto. midda labaad waxa weeyaan biyaha kulul xilliga qubayska ama xilliga meerashada, qofba sida u yaqaano. biyo kulul ba lagu meertaa, lagu qubaystaa. taasina waxay keentaa rag iyo dumarba intimaha ay ka daataan, intimaha ka go'aan. midda saddexaad waxa weeyaan shanlada oon xad loo sameeyo mar walba la iska shanlaysto oo si joogto ah maalinka 10 joor 6 joor 9 joor. taasi waxay keenaysaa waa ka badbadaysa timaha, way ka daadinaysaa oo timaha way jarjaraysaa. 4 shaambada lagu qawaysto oo jirka lagu dhaqo ama timaha lagu dhaqo, taasna waxay keentaa inta badan haddaadan aqoonin oo marba shaamba aad qaadanayso, taasi waxay keenaysaa in marka dambe timaha ay ka daataan. shaambada waa inay noqotaa shaambo oo joogto ah oo taa taqaano ah oo aad iska akhrisay marka timaha ku dhaqaysan. waa inay saas ula socotaa si timaha u badbaado, u nabad qabo. marba shaambaha u ordin, marba shaambayaan lagu amaanin. hal xaba ama laba xaba si joogtayso oo aad taqaano wanaageeda iyo inay timaha ka kala daadanin oo timaha ay ku dhaafayso, timaha ay ku jiranayso. tanna waa la mid oo iyadana waa midda shanaad, waana saliidda timaha inta badan la marsado. taasina waxay keentaa inta badan saliidaha hadda marba mid nuuc aad taasi waxay keenaysaa in midda ku roon aadan garanayn timaha inay marka dambe ay ka kala daadayso, ay ka jarjarto. waa inaad saliidda haddii timaha ay saliid maraysid waa inay dhacdaa saliid aad taqaan oo aad isticmaali jirtay ama qof yaqaano aad ku kalsoon tahay uu kuu sheego. waa inaad taas joogtaysaa hal ama labo. midda ugu dambeyso oo 6aad waxa weeyaan kareenka inta badan timaha lagu jirciyo oo timaha la mariyo. rag iyo dumarba way isticmaalaan. waxaan taas kaga digayaa intaas aan soo sheegaba dib bay timaha u keentaa. badanaa timaha oo daato un baan arkaa iyo timaha oo go'go'o. waxyaabaha timaha kaaga goonayo in laga fogaado waa muhiim. kareemka timaha la marinayo waa inay noqotaa mid aad taqaan, dadka ka maarmi kartaan. waa aad iyo aad bay muhiim tahay in laga fogaado waxa timaha iyo caafimaad darrada iyo madax xanuunka keenaya. marba haddaa aado wax cusub, madax xanuun waa kula soo daraysi oo madax xanuun oo joogto ba ku imaan, timihiina waa kaaga go'ay. marka sida taasi loogu badbaado waxaa muhiim ah in waxaad madaxana u roon, jirkana u roon, timahana ku badbaadi karo in la wajaho oo la abaaro. 6dan shay Allah haddii awoodda loo yiraahdo waa in si taxadar ah loogu digtoonaada oo la iskaga fiiriyaa sida bulshada ay u nabad qabto oo nabad qab loo helo oo loo badbaado. haddii Allah awood loo shirkado waxaa jiro iska soo saaro kareenka, shaambada, saliidda. marka waa in laga taxadaraa waxyaabaha markaas caafimaadka qofka bini'aadamka u ah. waa inuu xoog u saaraa si markaasi nafta loo badbaadiyo, madax xanuun loogu badbaado, jahware loogu badbaado, timaha go'go'ana loogu badbaado. timaha go'go'o kaliya ma ahanba, marka qaarkood saliiddaasi iyo shaambadaasi waxay keenaysaa in madax xanuun aad ka qaado, madaxii lagugu dhufto oo dhibaato ay kugu timaado. marka si taasi loogu taxadaro oo xal loo helo insha Allah ta'ala waa in 6dan shay la iska ilaaliyo, laga taxadaraa. waxaan idin rajaynayaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo. inta barnaamijkan barnaamij limid ah ku kamid doonaan waxaan idin rajaynayaa khayr. fadlan ha iga ilaawin share, like, subscribe si mar walba anitaasi dhiirigelin bay noqonaysaa. si mar walba aan barnaamijyo waxtar leh oo bulshada anfaca aan idinku soo diyaariyo waa inaad i dhiirigelisaan oo sharekaas iyo subscribe-kaas
iyo like-gaas aadan iga ilowin si bulshada ay ugu sii faafto oo dad badan ay ugu faa'iidaystaan, dad badan ay u gaarto. waan rajaynayaa insha allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu.